oraah murtiyeedeed xiriirka xididka markuu soo xumaanayo siduu u kala daran yahay. Waa oraahdii mahmaahda noqotay ee ahayd nin iyo seedigii wada hadlay, suugaantana rag baa mooday. Sodogii hadday gaartana saxariir rag baa mooday. Sodohdii hadday gaartana hal kala socdaa mooday. Intaan haddaba ina hebel guursigeeda inta aan tala kaga bixin, waxay ragga hore doori jireen anshaxa qoyska ay ka soo jeedo, waxay si hoose ugu dhabagali jireen magaca ama magac xumada qoyska bulshaweynta ku dhex leeyahay. Ninka markaas guurdoonka ah ayaa wuxuu si gaar ah uga fiirsan jiray camalka iyo guhaada islaanta biri sodoh u noqon doonta. Waxaa la qabay in ayada tahay jiritaanka guurka gabadheeda qofta dheereyn karta ama inuu dumo soo dadeji karto. Waase waayaheed ay dhashu waalidkeed dhab u maqli jirtay, iyadoo dhowr da-ood dhashay ay gabadheeda hooyadeed gacanta soo qabsato, reerkii ay wax u dhashay wax ka soo kaxaysa karaysay. Sababaha dartood ay reerka uga roonaan jireen, uga xishoo jireen, erey xun iyo wax toona uma quuri jirin. Soorida la siin jiray sida wada ogsoonnahay gabadha aabaheed ka sukow waxaa jiray xoolo aan sida u badnayn oo sodohdii u gumey jiray, mararka qaarna qasab looga dhigi jiray. Aan tusaale idinka siiye, beri baa aad waxaa loogu tartamay guur gabar ina suldaan diiriya la dhihi jiray. Xoolo fara badan ayay dadkii dhalay ku xireen, markaasaa la isku fallisay ilaa markii dambe ayba arrintii xaniinitaabad gaarto. Ma heer hebel bay u dhici doontaa mise guryaha heer hebel ay salka dhigi doontaa? Talow ninka suldaanka kula xididi doono kumuu noqon doonaa? Su'aalahaas iyo kuwo kaloo badan ayaa meelaha bulshada iskugu imaado lagu hadal hayay in muddo ah. Wax la wadaba goor dambe waxaa tartanka ku soo biiray barbaar qoys sabool ah ka dhashay, balse loo wada han weynaa, barbaar la wada jeclaay, jufadiisa meel sare ka joogay. Markaasuu kuwa xoolaha lahay ku mashquulsanaa, wuxuu ku dhaartay haddii gabadhan loo soo xiro gelin inuu taloobi doono. Xoolaha yar oo suldaanka sheegta haddii aan la soo tubin in aan dib dambe lii arki doonin. Markaasaa loo wada guntaday. Rag aan doonayn in gabadha lagaga adkaado ayaa maalmo gudahood ku soo ururiyey geelihii iyo fardihii, taasoo suldaanka gabadhii dhalay ku raali noqday. Dhowr bilood kadib ayaa reerkii uu la xididay waxaa u socdaalay wiilkii oo doonaya inuu gabadhii dhisto oo ka soo kaxaysto. Hase yeeshee markuu gaarayba waxaa laga hor keenay sharuud hor leh, waxaana lagu yidhi waxaa gabadha lagu dhisayaa markii aad sodohda u keentid 60 neef oo ari ah iyo owr ay ku guurto. Kadib wuxuu ku soo laabtay isla xigtadii oo shalay ka bixi jirtay ayuu dul yimid, ayagoo fadhiya geedkii ay ku shiri jireen, kana tiriyey tix gaaban oo gabay ah. Waxaana laga hayaa lubadaydu kuma beegsateene labida waaweyne, igu laashi meeshii dadka layradka ahaaye, 60 ari ah iyo qaalin bay libini joogtaaye, baliil geliya caawana wixii lagula laamaayo. Halkaas ayaana loogu ururiyey. Sodohdoo la qurxiyaa maaheen wax guurka kaliya ku ekaaye, waa wax inuu ku wado ninka wanaagsan ee gabadheeda qaba laga fila jiray. Haddii lala darso iyo haddii laga fog yahayba, waxay ka mid ahayd dhaqankii hore ee Soomaalida qaybihiisa wacnaa ee la isfari jiray. Sodohda wacan waxaa iina laga malaysan jiray ninka gabadheeda u dhaxdo inay dhab uga xishooto, labadoodaba inay hooyo u wada ahaato, haddii madmadow soo kala dhex galo inay gartooda dhexdhexaad ka noqoto, in maamulka qoyskooda si toos ah faraha ula gelin, had iyo jeerna siduu u sii jiri lahaa ku howlanaato. Sodohduba weligood isku mid ma ahayn, sida dadka kale u kala dabeecad duwan yahay ayaa iyagana u kala dabeecad duwan yihiin. Waxay dhihi jireen
qof walba wuxuu la yaray ayuu la weynaadaa, waana abuur baa ka horeysay, waa tii ku mahmaahi jireen. Macnaheedu wuxuu yahay inkastoo sodoh Soomaaliyeed u badnaayeen dad wanaagsanoo xishood iyo sariigba leh, haddana waxaa marmar la arki jiray mid kulul oo igaarka ay sodohda u tahay har iyo hoyaadba u diida, ilaa marka dambe iyada iyo gabadheedaba u daldaayo. Malahaygana taasoo kalaa waa tii Allah u naxariistay Cumar Cigaal lahaa, sodohdii xun gabadheeda waa lagaga siibtay. Si kastaba ha ahaatee, rag tiro yar oo waxaa jiray markii ay is-afgara waayeen indha adeegooda ku dhiiraday inay sodohdoodu u gabyaan. Mid kuwaas ka mid ah ayaa reer asne sabool ah gabar ka guursaday. Guurkana 3 mid ayuu noqdaa, waa bari saaran, waa 2 reer oo ladan oo xididay, bari dab saaran oo loola jeedo 2 reer oo midkood ladan yahay midna sabool yahay, iyo dab saaran oo loola jeedo 2 reer ay ceer yihiin. Ninkaas haddaba saboolka ahay oo cidda saboolka ahna ka guursaday ayaa sodohdii waagii dambe aad ugu kululaatay, mar ay gabadha ku soo dirto iyo mar ay ayada u bareertaba. Waagii baryaba waa eray, gabalkii dhacaaba waa canaan, hiif iyo haaraan, lug iyo laad ayuu kala bixi waayey. Sababtana waa la gartay, inanka gabadheeda guursaday ayay malaha waxtar ka filaysay, taasoo ay ka hungowday. Sodoh iyo cid kaleba in xididka wax istaraan waa gar, waase marka wax liis dheer yahay, dhinacna wax uu haayo, dhinacna ay waxaas baahi u hayso. Maalintii dambe intuu meel fadhiistay asigoo keligiis ah garnaqsaday tix gabay ah oo 3 meeris ka kooban u tiriyey. Marka hore wuxuu garaystay waajibkii ay sodohdii ku lahayd inaanu gudanin, marka labaadna wuxuu iskugu cudur daaray inaad taas eed ku lahayn, marba hadduu hantidii ayada ku raaligelin lahaa haddii gacan ugu jirin. Marka saddexaad, sodohdii ayuu ku eedeeyey inay ka wareegsatay dhaqankii wacnaa ee sodohnimada ku saabsanaa, asigana aysan ka xishoonin inay ximiso maahine. Markaasuu yidhi, sodoh waxaa xurmaysaa markaa xoolo leedahaye, allaylehe xaqaaga ma gudin laysma xaasido adigana xishood kuguma arag laxintan mooyaane.